waqti hore oo dunida weli ku jirtay mugdi iyo shirki, Kacbadu waxay ahayd goobta ugu barakada badan ee Carabta oo dhan. Halkaas ayay imaan jireen qabiil kasta si ay u sameeyaan cibaado, ganacsi iyo xurmeyn. Kacbadu ma ahayn dhisme caadi ah, waa hooygii Ilaahay amray in la dhiso si loogu tukado hal ilaahna lagu caabudo. Laakiin qarniyo kadib Carabtii waxay u beddeleen shirki iyo sanamyo. Markaas ayaa nin lagu magacaabo Abraam al-Ashram u soo baxay, nin xoog leh, taliyihii Itoobiya ee Yemen. Abraam wuxuu ka tirsanaa ciidankii Itoobiyaanka ee xukumay Yemen. Wuxuu doonayay inuu dadka Carabta ku khasbo inay cibaado u yimaadaan. Kaniisad uu ka dhisay magaalada Sanca halkii ay Kacbada tagi lahaayeen. Wuxuu dhisay kaniisad uu u magac daray Al-Qulays, dhisme dahab, midab dhaldhalaalaya iyo saqafyo qurux badan. Ujeedadiisu hal mid bay ahayd, inuu dadka Carabta ka leexiyo Kacbada uuna keeno kaniisadii uu ka dhisay magaalada Sanca. Laakiin Carabtu way diideen. Mid ka mid ah dhalinyaradii reer Maka ayaa si cara leh ugu gafay kaniisadaas. Abraam waa xanaaqay, xanaaqiisa ayaa ka dhashay kibir iyo isla weynin. Nasiib daro, Abraam xanaaqiisa wuxuu ka gudbay xadka. Wuxuu yidhi, waan u socdaa Kacbada, waana burburin doonaa, waxaan tusayaa cidda ay caabudayaan. Wuxuu ururiyay ciidan waaweyn oo ay ku jireen maroodiyaal dagaal, taasoo Carabtu ay weligood horay u arkin. Safarkiisu wuxuu ahaa mid dheer oo dagaal iyo burbur ah. Ciidankiisu waxay burburiyeen magaalooyin yaryar oo jidka ku yaalay ilaa ay soo gaareen magaalada Maka. Ka hor inta aan la gaarin weerarka, Cabdulmudallib wuxuu la kulmay Abraha. Abraha wuxuu yidhi, sidee baad uga hadlaysaa xoolahaaga oo aad uga aamusaa gurigaaga xurmeynta ahaa ee aan u si aan u dumiyo? Cabdulmudallib wuxuu ku jawaabay, anigu waxaan ahay milkiilaha geela, gurigaanna wuxuu leeyahay rabbigiisa, isagaana ilaalin doona. Abraha wuu quslay, isagoo kibir iyo isla weynin ku jira. Wuxuu amray maroodiyaashiisa inay socdaan si ay u burburiyaan Kacbada barakaysan. Intayna u gudbin duulkii abaabiil iyo difaacii Alle ee Kacbada. Haddii channelka ku cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe dheh. Subaxdii xigtay, Abraha wuxuu amar siiyey maroodiyaashiisa, laakiin midkoodna ma dhaqaaqin. Waxaa la sheegay in maroodigii ugu weynaa ee Maxmuud uu diiday inuu u socdo dhanka Kacbada. Abraha wuxuu isku dayay inuu khasbo, laakiin waxaa bilowday arrin cajiib ah. Dabaylo ayaa kacay, cirkana wuxuu noqday mugdi. Waa markaas uu Ilaahay soo diray duul abaabiil ah. Kuwaas waxay ahaayeen shimbiro yaryar, laakiin gacantooda waxay ku wateen dhagxaan laga sameeyey dhoobo kulul. Waxay ku daadiyeen ciidanka Abraha mid walba dhagax gaar ah. Mid kasta oo dhagax ku dhacay wuu gubtay oo dhintay. Abraha laftiisa wuu dhaawacmay oo wuu baaba'ay isagoo baxsad ah. Sidaas ayuu Ilaahay u difaacay gurigiisii barakaysnaa. Qisadani waxaa lagu xusay Qur'aanka Kariimka ah ee Suuratul Fiil. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما أركتي ربك سيدو ولدق ميكوي مرودي قوتي موسى كدي خشودي مدلمي وحون قصو دريدول أبابيل kuwaasoo ku tuuray dhagxaan loogu kulul waxayna noqdeen sidii coos la cunay. Ugu dambeyntii dhacdadan waxay ahayd mucjiso Ilaahay muujinayay in cidna aysan awoodin inay burburiso Kacbada. Sanadkaas waxaa lagu naanaysay sanadkii maroodiga, waxaana sanadkaa dhashay nabigeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Sida Abraha waxayna baraysaa in awooddii Ilaahay ay ka sareyso tan bini'aadamka, in cid kasta oo guriga Alle ama diinta Alle la dagaalanta ay iskeeda u burburayso. Kacbadu weli way taagan tahay. Abrahana waa la iloobay oo wuxuu ka hooseeyaa ciidda, balse magaca Ilaahay weli waa sareeyaa. Halkaa ayay ku eg tahay taariikhdii Abraha. Haddii channelka ku cusub tahay, mar kale nagu soo biir oo subscribe dheh.